Maanayaal ku aqal-gala caasimadda dalka ee Muqdisho waana mid ka mid ah wiil dhalinyarada naafada ah. Mar qura ayay jacayl ka dhaxaysay wiilkan iyo gabadhan ku dhawaad 9 sano ee ka maqneyd gabadha. Inkastoo ay ku maqneyd Sacuudiga, intaasina wiilkani lixaadkiisa waa u dhammaystirnaa. Laakiin mar qura ayaa xanuun asiibay, ugu dambeynna waxa uu waayay lugihiisii dhammaystirnaa. Ayadu maysan ka tegin xilliga uu waayay lugihiisa, maadaama asiga oo dhammaystiran ay isku soo biireen noloshana isku darsadeen. Waxay noqotay aroos cajiib ah, waxaa ka soo qayb gala dad badan, waxaa wehelka ahaa hooyooyin iyo aabbayaal, waxaa soo martiyay dad qalbiyada ka jecel nolosha qoyskan quruxda badan iyo lamaanayaashan ifaya. Mar qura ayaa loo sacabo tumay, gabadhu way ilimeysay, wiilkuse ilinta waa ceshan waayay, maadaama uu soo xasuustay isla markaana uu go'day markii uu waayay lugihiisa. Waxa uu yiri Sacuudi ayay joogtay markii aan isbaranaynay, lacag ku dhawaad $1000 ayay ku shaqaysan jirtay bishii. Aniga daraaday ayay Muqdisho u soo gaartay, laakiin Muqdisho ayuu ku waayay lugihiisa. Waxyeellada muddooyinkii dambe dhacayay ayaa sababsatay inuu waayo lugihiisa. Hadda waxaa dhacday arooskiisa, gurigalkiisa, inkastoo ay calaameeyeen waqti ka hor. Haddana markii meherka xafladda la daadihinayay iyo sidoo kale habeenka farxadda ee fantasiyaha ayuu ilimeeyay wiilkan. Dadkii hoolka ka soo qayb galay ayaa dhammaantood u sacabo tumay, qaar kale oo madaxa u salaaxayay kuna dhahayay xaalku waa adduunyo, maantase waxaad rumaysay riyo badan. Farxad gooni ayay u ahayd inuu maanta maalintiisa ay noqoto, waana midda ugu sarreyso ee dhammaan bini'aadamka oo dhan ay ku faanaan, isla markaana ay rajeeyaan inay helaan maalintaas quruxda badan ee qiimeysan. Mar qura ayuu aamin waayay maalintan, maadaama uu markasta ku soo celcelinayay gabadhu waa qof wanaagsan, waayo imaysan qiyaamin. Inkastoo siyaabo kala duwan loo kala tegay ayuu yiri. Nolosha qof kasta oo qof kale ku darsado waxaa muhiim u ah, isla markaana aasaas u ah ballanta iyo ahdiga. Fadlan daawade muuqaalka like noo saar oo subscribe noo dheh, kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran.